koob iyo toban murashax oo ka tirsanaa murashaxiintii ku loolamay doorashadii golayaasha deegaanka degmada Gabiley ayaa maanta si weyn u qaadacay natiijadii hordhaca ahayd ee ka soo baxday komishanka doorashooyinka degmada Gabiley kadib markii ay ku eedeeyeen in ay heleen codadka ugu muhiimsan hase yeeshee si musuqmaasuqa loogaga shubtay codadkoodii. murashaxiintaasi oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Gabiley ayaa dhaleecayntii ugu cusub u jeediyay komishanka doorashooyinka degmada Gabiley iyagoo ku tilmaamay in xarumaha doorashooyinka degmooyinka iyo gobollada dalka ka dhacay ay ugu musuqmaasuq badnayd Gabiley hase yeeshee aan cidi ogaanin. waxaanay murashaxiintani ka dalbadeen komishanka guud ee doorashooyinka qaranka in faragelin lagu sameeyo isla markaana si weyn loo hubiyo sanaaduuqdii codbixinta ee laga qaaday degmada Gabiley. murashaxiinta shirka jaraa'id ku qabtay magaalada Gabiley oo ay hormood ka ahaayeen murashax Khadar Aadan Sheekh Muuse iyo murashax Cumar Muuse Caalin oo labaduba ka tirsanaa xisbiga UCID ayaa sheegay in ay yihiin xubnaha ku guuleystay tartankii doorashada golayaasha deegaanka hase yeeshee laga maasuqay codadkoodii. iyagoo arrimaha ka hadlaya waxaa ka mid ah hadalladoodii. waxaan halkan ka soo jeedinaynaa cabasho gardarrada iyo cadaalad darrada ka dhacday natiijadii doorashooyinkii golaha deegaanka ee Gabiley. marka hore aanoo ka tegin magacayga aan idiin sheega waxaa la yidhahdaa Cumar Muuse Caalin waxaan ka mid ahaa tartamayaashii xusbiga UCID gaar ahaana nambarka 205 baan ayaa ii calaamadahay. waxa weeyaan cadaalad darraanu ka tabanaynaa cadaalad darra ka dhacday taasi oo ay markhaati ka tahay anigoo codadkaygu intii ahaayeen in ka yar ay rag ku fadhiyaan oo ay ku soo baxeen leeyahay oo aan si cadaalada loo tirin aanu haysanana qoraalkeedii in ka badan 1200 aan haysto goob walbana wixii nooga soo baxay intan laga qariyay maaha intii kale aanu hayno. waxaanu baaq u jeedinaynaa ummadda reer Somaliland oo dhan gaar ahaan komishanka qaranka waxaanu leenahay cadaalad darrada halkaa ka dhacday hoos loo eego sida degmooyinka kaleba loo eegayo. waxa weeyaan maalintii hore 5 kursi baad leedihiin baa la yidhi oo nadka la geliyay galabnimadiina waxaa soo baxday in la yidhi 4 kursi baad leedihiin 4taa kursina in aan tiradeeda haysanin sida aanu hubno ayaa lagu soo qoray. waxaan leenahay cadaalad darrada halkaa ka dhacday hoos loo eego. anigoo ah Khadar Aadan Muuse Sheekh Xasan kana mid ah xisbiga UCID nambarkaygu ahaa 219 ama 219 waxaan halkan ka cadeynayaa in codbixintii ka dhacday gobolka Gabiley gaar ahaan in 100% la musuqmaasuqay dhammaan dadweynaha reer Gabiley dadweynaha ay musuqmaasuq ka dhacay degmada Gabiley. waxaan halkan ka cadeynayaa ragga halkii uu ka mid ahaa ijtimaac inay faragelin ku sameeyeen komishanka kuna qasbeen gudoomiyaha komishanka inuu bedelo liiska kulmiye deetina muraaqibiintii kale iyagana lagu cadaadiyay inay wax ka bedelaan. taasina waa ta keentay in la kala sareysiiyo rag aan codkoodii yaraa cod badan la siiyo raggii codka badnaana dib loo dhigo. taasina waxay keenaysaa in faraha ay ka baxdo oo taageerayaasha dadkii la taageerayay ay ooda soo jabsadaan intaa gacantaan ku hayn. waxaanu leenahay oonu sheegaynaa guddoomiyaha qaranka ee komishanka in uu baadho oo dib loo tiriyo codadkii gobolka Gabiley ama degmada Gabiley si aanu u qanacno. ragga waxa qanciya cadaalad iyo soorid wanaagsan oo loo sameeyo mana yeelin mana dul qaadan mayno hadday dhaafto ama la tirin waayo dib loo tirin waayo codadka gobolka Gabiley farahay ka baxaysaa. waanu sheegayaa madaxweynaha Somaliland waxaan ku soo gabagabeynayaa ku kaajaan inuu qana ويان عبد الرشيد شيخ إدريس شيخ محمد بلغا waxaan ka tirsanaa xisbiga aan ku galay ololaha ummadda 101 nambarkaygu ahaa dadka xisbiga ka sharaxay way tira yaraayeen
toddoba nin baanu hayn cidda ka sharaxay meesha toddobadeedii ololeysay sidaan darajada number 1 ugu qoraa ee aan codkii uga sameeyey ee u wada ogaayeen 6 kalaba ayaa ilaa hadda ka booskayga lagu bedelay ee ummadda ayaa ii ogsoon in aan ka codsaneeyey isaga oo leh komishanka kala xidhiidha taas markaan dhaatadii siiyey dhaatada ma ogola komishankii way diideen taasina waxay caddaynaysaa corruption ka dhacay xukuumadda lafteedu faragelin ayay ku soo samaysay cad komishankan degmada kow komishankaasi hadda waxaan qaranka ka codsanaynaa tirintaa uu dib u eegistaa uu ku sameeyey Hargeysa in dibna loogu eego annaga laakiin celcelintan ay komishanka gobolkuna celcelinaya taas waxay sii abuuraysaa cadho fara badan dhammaan waxaan halkan ka umahadnaqayaa dadkii noo codeeyey oo dhammaan iyaguna u garba duuban codkoogii dee doonaya oona nagu hortaaganahay haddaba taa waxaan ka codsanayaa komishanka qaranka dib u eegistii ku sameeyey in Gabiley lagu sameeyo musharaxiinta ay la fadhido dhanna sidaa ka daali ayuu cabanaya waxa aan ka cabanayaana waa wax jira wax cad oo proof weeyaa waanu haysanaa dhaatadayda anaga noo qoray munaafiqiinta noo soo qortay dhaatada kaliya la siiya aan isku eegno wixii naga maqan halkaas aanu ka soo saarinaa sanaaduqa naga maqan ayay diideen inoo diideen inana siiyaan kow haddaba waxa weeyaan saana ahaan mayso kuwa loo siiyey darajooyinka ee la yidhi waxaad tihiin xildhibaano soo baxay waxaan u sheegaynaa haddii arrintaa wax laga qaban waayo inaanay nabad ku fadhiyeyn oonay cadaalad ku fadhiisan doonin degmada Gabiley intay soo fadhiistaan iyagoo xildhibaana وبسم الله الرحمن الرحيم أنا مقعد وياهي موليد آدم محمد كانت ترسنا مرشحين تا أوروكا وطني ونمر كيقول لها لح بقول إيه السجال وحيابها كده عي قبلي وها عليها ما أها وح عدالة صبابتها مدبدا أيام لمهور سنة ماشى الله يراه الكوميشن واحد تتهاد مراقبين تي أنا جمر كاسي جوابها نوتشوكي نتيجوينك أي نوع كينان iyo natiijooyinka uu komishanku soo saaray ma aha wax iswaafaqaya waa mid cadaaladda ka fog waxaan la qabaa walaalahayga kale ee toddobada urur ee iyaguna ay cadaalad darradu ku dhacday Soomaalidu waxay tiraahdaa war jiraa waxaan kaaro iman waxa weeye toddobaadadani wararka soo baxaya ee xaqaa'iqa ah ee cid walba ku dhacay ee cadaalad darrada ah ee ku kooban ama aan oran karo macnaha waxa ka dhacay Gabiley oo anagu markaa aanu iminka ka tirsanahay waxa weeyaan mid aan loo dul qaadan karin taageerayaashayadii hiil iyo hoonoo huray ee codkooda na siiyey ee kumaankumka ahaa oo maanta la leeyahay waxa 700 iyo waxoogaa waxay aqbalayaan ma aha waanu hor joognaa oo waxaanu leenahay walaalayaal bal suga inta cadaaladda aanu arkayno ummadda hadda maanta jirta waxaanu sheegaynaa in ay waddankani ka soo dhicin doorashooyin hore oo xalaal ah oo aan cidina ku murmin cidina aanay isu qabsan haddaba anagu ma garanayna maanta waxa keenay in la isu qabsado Gabiley waanu joognay maalintii ay bilaabantay macnaha tirinta codadku ilaa maanta niman xukuumadda ka tirsan ayaa Gabiley sida daadka u soo galay haddaba dhuxduxda iyo waxyaabaha ay wadeen waxaanu moodin inay ku koobantahay kulmiyo kaliya laakiin maanta waxaanu ogaanay inaanay ku koobnayn kulmiyo oo kaliya ee urur kasta ay faraha la soo galeen iyagoo markaa sheegaya inay ku saleynayaan macnaha qaab qabiil oo markaa ay isleeyihiin iyagu malaha masaalixad bay ku jirta haddaba ummadda maxaa laga wareeriyay baanu leenahay haddii qaab qabiil lagu saleynayo dee qabiilooyinka Gabiley degan maal la siiyo oo inta caqligadooda loo yeedho si xor oo xalaala cid kastaaba tirada ay leedahay dee lagu siiyo xildhibaanada ay helayso haddaba doorashadani tacab badan baa naga galay xoog badan baa naga galay caqli badan baa naga galay ummad badan baa dhaxanta u soo jeeday maalin iyo habeenba oo moodaysa cadaalad iyo dimuqraadiyad markaas cidda ay wataan ay ku soo baxayso taasi waanu maqlay laakiin waxaanu moodaynay de mid cadaalad commissioner shayga la yiraahdo waa guddi ka kooban markaas sidii 6 qof ama 7 qof guddidaasi way daarat si xor oo xalaal ah haddaba in ay ugu milanto annagu ma naafilaynin xukuumadda maanta jirta waxaanu aaminsanahay boqolkiiba boqol aanu aaminsanahay commissionka meesha jooga inaanu ahayn mid xalaala oo markaasi ku milnay xukuumadda maanta jirta xukuumaddan waxay ahayd inay dhexdhexaad noqoto oo ummadda markaasi ay metelayso ay dhexdhexaad u noqoto haddaba waxaan ku soo gebagabanayaa anu markaasi dacwadeydani ama dacwadeeda waxaan ku soo gebagabanaya oo aan leeyahay waa
سحر أو حلال على ورقة على صندوق الله تريو هدي للدون يين يدقمدن يودك بها جاجان ومضوا حديقة عدالة هدي عدالة دلوقتي عد والبوحة أي مركزي ما لا يستطيع أي سمين مركان واحد لنا طبعا تاني تاسر دعين سي عدالة الله تريو عضات كي دقمدة وجودي حلالها الله سمايو حكومة الفرق عضبين أنا عدينا وهنا ونكعبنا نوع كمدا قدوميها دقمدة كمشكا دقمدة قبلي يحوجيها دقمدة قبلي الله بحضر أو كردون كحضلي تصالحنا وكره قدومي وحشاجين اللي إحنا كنا دائرات كعوديين دقمدة حوجيها دقمدة وحشاجين تدبي اللي إحنا كنا وقف كعوديين دقمدة قبلي كون قفوا الحياة أنا شخصيا توتال كأن حياة مراقب كي نوتشوجي والسياسات وطن نوتشوجي جدا أما كمشكا دحديسة ترى أن كهيو على صندوق يقول بان كهيو هي ترى أنا جايبو قرن ورقدان أي صوص ساعيين النت كل جلي وحاول حياة بقول يكوبي اللي إحنا نبغاه تاسوح الموجين ما دام أي قدومي حقيقي كان هذا كان هذا الكاسح عد كاسح مكان ترى مكان إن تاي ترى أنا جاي مكان قريب كامل وبقول كيكوبي اللي إحنا كاسح كمدين كون كا وشاقي حقيقي عدي قدوميين وقريجي إن كتير تترداس مرشحيتك كلا عبنا سنة وصلنا نيك كرسي حق درجة تجي وحنا لنا أيمك ونسول جديدنا دمان دولة محن كنا هذا كمشي كقرن كمان هدي أرنكا وحلاقي قبض وايو وحلاقي قبض وايو سلا ودك صعب بدنا حلاقي قبض وايو دبنا ولا حركة كوينة وحوي قف كده نوع عدي عد كيسين لا يدعى قردرة لو قاطو مو قليل قفنا نجمع قلا وحوي أنا جماعة والبوال ندبى السعودة أو الشعب كنا دورته ندبى السعودة بغير شرط إنه وحوي كحر ما إنه إلا على نوع عدي ولا نتصو إلا أي مجموعة إنه كل سويكر لاناي أما أنو كلان أي كمشة كدقمة قبلي إن نسيان وراقيه قابل بوحن كهلا أنا وقف كستابة أما مرشح كستابة وكهلا محل الله قرنا يا وكيل ذي ماشي كدعي غير لا بخبر سيدي كيلو ري برا وشيء وضيعات البرة وحنا ماشي كدعي ووحنا لا يابوي ووحنا لا يقصدوي هاي هيدنا ميراها كلا كديان إما عين الجبل كديان ما هاي ويجبلي dadkeedii iyo shacbigeedii iyo dadkii noocdii waxa la karaa runaantii dadku dhiig bay noo shireen codna ma isri dhiig bay noo shireen waxa habeen walba dhaatay oo qoranaynin waxay ahayd oo qoranaynin nin kasta wuxuu sitowis iga hooseeya iga sareeya kama xumi kuwa naga sareeya waayo ma nadib cagaarin laakiin kuwa naga hooseeya la soo qaaday waan ka xunaa aad baan uga xunaa wakiilada iyo komishinka degmadu ay heshiiyeen laguna talagalay inaan cidna waxba la tusin taasi waxa ka maraga isla galabtaasina nin natiijo lagu dhawaaqay sanadii waa la rabay kaayar markii aan sidaa arkay uu yiri heshiiskaas la galay oo nu galnay inaan cidna waxba la tusin waanu israacnay subaxii dambe anagoo dhowr waxaanu tagnay halkii komishinkii guri weligii lagu shaqeeyay moodida qofka ku jabsan la isgeeti way may ahayn rag soo baxay waa rag kolkaad eegtay dadka soo baxay waa dad mid walba meel buu kaga xidhan yahay mas'uuliyiin xukuumadda ka tirsan ayuu mid walba meel kaga xidhan yahay ama saaxiib ha noqdaan ama habrooda ha noqdaan ama seedi ha noqdaan ama ilmaadeer ha noqdaan marka waxa weeye haddaanu commission waxaan u sheegayaa dadweynaha annaga hor joogna waanu haysanaa ummadii codkana siisay kuwii shalay ololaha noola baxayay baa joogay codka bixiyay oo diyaara ayaanu joogaa annaga ayaa joojinaynaa waxaan ku joojinaynaa komishinka guud ee qaranka kuwan gabilay kama sugayna waxba anagu waana talagal weeyay wax ka sugayna ma jirto komishinka guud ee qaranka waxaanu ka sugaynaa inay arrinkaasi wax ka qabtaan in dhammaan 130 goobood 430 baankii gabilay ku noqdeen koobiyadii la saxeexay ee todobada xisbi muraaqib ay saxeexeen iyo komishinku taas oo la naftuso la noo koobi gareeya iyo sanaaduuqdii oo hal loogu tiriyo mooyaan wax kale oo namaraya ma jirta mana yeelin sidoo kalena waxa magaalada Togwajaale isu soo bax kooban ku qabtay taageerayaasha murashax Cabdilaahi Cabdi Qaalib oo ku magac dheer Bukhari kuwaas oo si weyn uga cabanayay in doorashadii lagaga shubtay uu ku soo baxay murashax Cabdilaahi Cabdi Qaalib sidoo kalena waxay taageerayaashan xuseen in ay hayaan codadkii goobaha looga codeeyay degmada Togwajaale oo ahayd halkii ugu badnayd murashaxaasi iyo goobo kale oo ka tirsan degmada Gabiley goobaha codbixinta waxaan halkan ka cadeynaynaa inaan ku qanacsanayn haba yaraatee doorashadii natiijadii ka soo baxday doorashooyinka
oo lagaga shubtay xildhibaan cabdilaahi cabdi qaalib shantii galabnimo markay saacaddu maraysay annagu kuma kalsoonin natiijada ay soo saareen nimanka komishanka dib in loogu celiyo degmada Gabiley ayaan u baahnaa annagu ilaa 60kii ilaa 64kii ma foot soo arki jiray haddii la yidhi hal la footeeyo Soomaalina loo footeeyana la yidhina Soomaalina loo footeynaya ma aragay qabiil loo footeynaya aan aragay si qaladaana loo noola dhaqmay qaladkaas Gabiley buu ka yimid wax komishanoo la noo golayna ma jirto munaaqibayadii iyo waxyagina waa la diiday waxa weeye annaga in la noogu celiyo oo ka qanacno ayaan aad iyo aad u rajayn nabadana aad baan u danaynaynaa aad ugu dhaliilaya iyadoo ayna ku dhaqaaqin kitaabkii ay ku dhaarteen siduu ahaa balse ay yeeleen xildhibaano iyo wasiiro uga yimid Hargeysa ta kale dadka iyagu aad iyo aad bay u jecel yihiin nabadda mana doonayna inaanu qalad ridno waxaan danaynaynaa dalku inuu dhisnaado laakiin waxaan diidanahay cadaalad darrada nalagu maaha markii ugu horeysay ee komishanka doorashooyinka Gabiley eedeeyaan xubno ka tirsan murashaxiintii ku tartamay doorashadii golayaasha deegaanka ee degmada Gabiley hase yeeshee umuurtani waxay noqonaysaa markii afraad ee nooceeda ah oo xubno ka mid ah murashaxiintii ku tartamay doorashadaasi ay ku eedeeyaan komishanka doorashooyinka Gabiley in wax la isdaba mariyay waa Cabdiraxmaan Hiiraan Harwanaag News Gabiley